hadalka wanaagsani waa furaha qalbiyada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, halka aad naga daawanaysaan waa Dhaymaale. Haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar, haddii aad horey noola joogteen muuqaalka like dheh, share gareeyo saaxiibada la wadaag, commentiga halka hoose ee faalada nagula wadaag. ninka shaqeeya warshada keedisa malaayga kuna ilaalisa qabowga daran ayaa maalin maalmaha kamid ah isagoo ku guda jira shaqadiisa waxa uu galay faranjeerkii weynaa si uu u soo gabagabeeyo shaqadiisa. markii uu gudaha u galay kadib waxa ku xirmay albaabkii faranjeerka, waxa uu isku dayay inuu furo waa uu ku guuldareystay si kastoo uu isugu dayay. waxa uu dalbaday kaalmo, wuxuu u qayliyay saaxiibadiisii shaqada, nasiib darrase cid maqashay u jawaabtay ma jirin. waxaa dhammaaday xilligii shaqada, waxaa dhammaan shaqada iyo xarunta ka baxay dhammaan shaqaalihii. ninkii oo quus taagan halisna u ah geeri maadaama uu ku jiray faranjeer qabowgiisa uu aad u daran yahay. saacado badan kadib waxa uu soo galay albaabkii soo furay ninkii waardiyaha ka ahaa warshadii ay ka shaqeynayeen. isaga ayaan halkaasi ka soo saaray oo ka badbaadiyay. maalintii xigtay ayaa ninkii maamulaha ka ahaa warshada waardiyaha waxa uu ku yiri, sideed ku ogaatay in faranjeerka uu qof ku jiro oo aad uga soo saartay? waxa uu ku jawaabay, 30 sano ayaan ka shaqeynayaa warshadan, ma jirin qof islaama oo i xaal wareysta oo noloshayda iyo wax i qosay igala sheekaysta aan ka ahayn ninka kan. markii ay ka baxayeen shaqada dhammaan shaqaalaha cid la hadashay ma jirin oo islaantay oo xaalkayga ii weydiisay oo ila fariisatay. waxaan dareemay ninkan inaanu shaqaalihii baxay ka mid ahayn oo weli gudaha ku jiro. waan raadiyay ilaa aan ka helay faranjeerka gudihiisa. sheekadan waxaan ka baran karnaa hadalka wanaagsan inuu yahay furaha qalbiyada, isla markaana uu ka badbaadin karo masiibooyin iyo haliso aad naftaada ku weyn lahayd. dadka nugul oo lala fariistaa, lala sheekaystaa, la xal wareystaa kuma baxdo wax taklif ah. waxa ay wax badan u tahay xiriirka aadanaha, isqadarinta aadmiga noloshay u tahay qurux.